السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان أمهد علينا إلهي سبحانه وتعالى. هل كان إير أو حير أيان أقوهد لدونا حسابته قيبين تأيلي هاي موضوع إن ما أنت حسابته وحو كساسين هاي قيب حسابته قيبينته أما قيبين هل قد تاني وحان أقول تلقلين ardayda iga soo codsadeen inaan u sharxo xisaabta qaybinta ama isu qaybinta xaqiiqatan isu qaybinta waxay tahay afar tafal ee xisaabaadka ay kamid tahay qofka aan isku dhufashadu god 2 ah ilaa ay god 12 ah qofkaan xifdin way ku adkaanaysaa inuu qaybinta ka shaqeeyo xaqiiqda marka runta laga hadlo waxaan ula jeedaa tusaale hadeer waxaan rabaa aniga labada xisaab waxaan u isticmaalayaa من سدح قفوت أنا استعمالها هل كاسنو حنوجو قرن جدولك multiplication جدولك اسكودو فشدا أيان نوجو قرن ترى سدح أيان سوقاتي سدح الكودوفو سدح لو كودوفو سدح كودوفو كل هل كاس بانو كشرح دونا هدو إلهي كران النقد إن شاء الله مركينا 10 كانوا ما تحكوا صاصية قيبين هل قد قيبين تو هل قد وأساسك اسو قيبين تفهم كده وياه هل كان ما تروح نقول حصان تصالح أفر قفوت أما أفر دولار وغيب 6 قفوت أما أفر وغيب 6 الأولى وحال الدنيا أفر دولار آيات هيستين إذن كنا وحاتين 6 قفوت ما دام أفر دولار آت هيستين إذن كنا آتين 6 قفوت وحال الدنيا أفر دولار إن أقيم يسو 6 قفوت حقيقة ما أقيم سميسو إيوه أقيم سميسا ما dhihi kartid sababtoo kama shaqeeynin laakiin waxa wanaagsan markasto wax kasto ina isku daydo ayaa wanaagsan tusaalaha labaad waxa loo leeyahay $8 ayaan haysanaa waxaanu doonaynaa 3 qofood ayaanu nahay in isu qaybino maadaama lacagta ay tahay $8 hadii 3 qofood loo qaybiyo qofkeen imisa ayuu qaadanaya xaqiiqatan xisaab aad u fudud waa laakiin waxa loo baahan yahay in isku dhufashada afham sanaato ama xifdi sanaato tusaale أفر قفوت وقيب أما أفر وقيب صدح $4 أما أفر وقيب صدح الأولى أفر وقيب صدح واتنا أفر أيان وقيب لنا صدح سيدا درت أفر وقيب صدح مركان الأولى وحنا نجينا $4 صدح قفوت وقيب سميسا وسؤال جوابته وأن أركي دونا وحي نكون دونتو سيدا درت وحنا رادينا بناك ترد تاجن وصدح لمرك بناك تاجن وصدح 6 جدول كده اسكو دفشدا ايالو ادينا سدا حل كدفو سدا لو كدفو سدا كدفو سدا افر كدفو سدا شان كدفو هدا تيرادي اديغا دونيسو سدا ان اد قيبيسو يا لعقتاسي waxa loo baahan tirada 3 ina xifdi sanaato jadwal kullu fashadu ila 10 ila 12 ina xifdi sanaato loo baahan yahay sidaas darteed halkan waxa loo qoran jadwalka isku dhufashada ee tirada 3 waxaa loo baahan yahay tirada banaanka taal 3 tira lagu dhuftay oo keenayso jawaabteeda 4 tirada banaanka taalo waa 3 tana oo jeeda kuwan ayaa u jeeda 3 saddexdan halkaan safan tira lagu dhuftay halkaan oo jawaabteeda noqotay 4 ugu jirta inta tira 3 lagu dhuftay jawaabteeda keentay 4 ma jirto maadaama halkaan ka weysay waad noqonaysaa waxa leedahay tirada 3 tira lagu dhuftay oo 4 soo dhaweeys ma jirtaa oo 4 ka yar tahay hadii tirada 3 oo tiro kale lagu sii dhufto jawaabta ka badanaysa tirada macnaha 4 way ka weynaanaysaa marka tirada kamil 4 looma baahan ee tirada keen 4 ayaa loo baahan yahay ee 4 ka yar tahay waxaan aadeynaa jadwalka tirada 3 tiro lagu dhuftay oo 4 keenayso wala waaye maxaa 4 ka yar oo 3 tiro lagu dhufto soo dhaweenayo hadii tiro 3 lagu dhuftay 3 hadii tiro lagu dhuftay 4 soo dhaweynayso waa 3 وانا هل صدح هذه اللي قلت هل وحي لم يتاي صدح سيدا درتيلي ترى اللي قلت او افر سو وين يسو ويجبتا وهل صدح هذه اقول هل وحي لم يتاي صدح علي اي لم يتاي سيدا درتيلي waxaan leeyahay afar ayaan ka jaraya saddex afar ayaan ka jaraya saddex afar hadaan ka jaro saddex waxaan helayaa hal sidaas darteed waxa soo baxday dadku waxay ahaayeen 3 qofood lacagtu waxay aheeday $4 ay aheeday qof kasta kamid ah 3 qofood wuxuu qaatay $1 oo lacag ayuu qaatay
qof kasta ka mid dadka ah wuxuu qaatay $1 lacag ah reesta ama waxa soo haray $1 haraagin wuxuu noqday $1 saddexda qofood markii qof walba uu qaatay $1 lacagta soo hartay ayaa ah $1 sidaas darteed hadda waxaan aadaynaa halkaan waxa lagu yiri tirada saddex oo kale ayaan ku darayaa saddex lagu dhuftay toddoba oo kale aan ku darayaa waa $22 tusaalahan wuxuu leeyahay $18 waxaad u qaybisaa saddex qofood haddaba $18 saddex qofood ma u qaybsataa waa su'aal jawaabta adiga laga rabaa $18 u qaybi saddex qofood $18 ayaan doonaynaa inaan u qaybino saddex qofood marka hore waxaan leenahay 18 soo qaado u qaybi saddex qofood tiradaan toontan waxay noqotay laba god ay noqotay gudaha banaankana waa hal god haddaba xeerka xisaabta qaybinta u degan ayaa ah hadday tirada banaanka taagan ay hal god tahay gudaha waxaa loo qaybinayaa hal god hadday noqoto lacagta gudaha ku jirto halka god ugu soo horeeyo hadduu ka yaraado dadka banaanka taagan markaasi waxaa laga dhigayaa laba god sida fiir tusaale kani waa dadku saddex qofood ma loo qaybin karaa $1 waa may maadaama dadka ay bateen waxaan isu qabanaynaa labadan tiro waxaanu dhahaynaa saddex qofood ayaan u qaybinaynaa $18 sidaas darteed waxaan raadinaynaa tirada saddex ah tiro lagu dhuftay oo 18 keenis ayaan ka raadinaynaa jadwalka isku dhufashada haddaad xifdisan tahay horaad ka sheegaysaa haddaad xifdisaneen isticmaal multiplication table jadwalka ku dhufashada isticmaal saddex tiro lagu dhuftay oo keenis 18 way jirtaa waa 18 way jirtaa waa tana saddex tiro lagu dhuftay keenis 18 waa lambar 6 saddex haddii aan ku dhufano 6 waxa soo baxayso 18 sidaas darteed 6 ayaa halkaan saarnaa 6 ma saarnay saddex haddii lagu dhufto 6 waxay la mid tahay 18 ayay la mid tahay okay 8 ka jar 8 waa eber hal ka jarne waa eber lacagtan waxay noqotay $18 markii loo qaybiyo saddex qofood mid kasta ka mid ah wuxuu helay $6 lacagtan idinna way qaybsantay wax xarayn ma jiro dhammaan lacagtu way qaybsantay waxaan rajaynayaa ardayda iga soo codsatay qaybinta inay fahmeen halka god qaybinta halka god guduhu hal god banaanka hal god inay fahmeen ayaan rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaad fahamteen commentiga igu soo dhiirgeliya haddaad fahmi weysaan commentigana iga soo su'aala insha allah waxaan rajaynayaa inaad fahamtaan asxaabtaadana u shargaray wassalaamu calaykum